subscribe, like, share, comment. Gambalan kadaysi. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkaad naga socotaan waa Som Teach Online. magacayga waa Ustaad Jaabir Saalax Siidow oo ku magac dheer Falax. waa macallinkii maadada chemistry-ga. hadduu ilaahay karaan noqdo waxaan qaadan doonaa casharadii maadada chemistry-ga ahaa. markii inoogu dambeysay waxay noo mareysay waxaan soo dhameynay qaybtii ahayd isomerism in alkaneska, gaar ahaan waxaa inoogu dambeeyay example-kii ahaa isomerism hexane oo la sameynayay. waxaan qaadan doonaa hadda marka iyo waxaan tirinay noocyada isomerism-ka. markii laga hadlayay nin kasta isomerism-ku uu leeyahay xoriye kasta macnaha compound kasta propane macnaha butane markii laga bilaabo ilaa ay decane isomerism-kooda sheegnay. hadda waxay noo bilaabanaya marka waxa lagu magacaabo physical properties of alkanes ayaa noo bilaabanayo. astaamaha duleed ee lagu yaqaano alkaneska. physical properties of alkanes, astaamaha duleed ee lagu yaqaano alkaneska ayaan ka hadli doonaa. lambarka koowaad markaan soo qaadano waxaa la hayaa alkaneska ayagu are non-polar waa ayaga. ereyga non-polar ama homopolar waa macnaha alkaneska waxaa la hayaa ayaga are non-polar waa ayaga. non-polar compounds waaye, waa isku dhisyo ayaa la yiri oo ah non-polar waaye ama homopolar waaye. micnahoodu waxay tahay kuma milmaan biyaha waa markaasi. okay, therefore sida aaweed ayaga soluble waxay ku milmi karaan kaliya non-polar solvents. milmayaasha oo ah non-polar kaliya ayay ku milmi karaan ayaga. and not soluble ma ku milmi karaan in polar solvents. milmayaasha oo polarka ah, polar waxaa la yiraahdaa kuwa biyaha ku milma. kuwan ayagana waxaa la hayaa biyaha kuma milmaan. non-polar waa kuwa biyaha aan ku milmin. polar waxaa la kuwa biyaha ku milma markaasi. waayahay, qodob koowaad waxaan dhahnay alkaneska ayaga maxaa la hayaa waa non-polar compounds waaye, waa isku dhisyo aan biyaha ku milmin. okay, therefore sida aawigeed ayaga soluble waxay ku milmi karaan kaliya in non-polar solvent ay ku milmaan. ay maadaama ay yihiin non-polar waxay ku milmi karaan non-polar kale ay ku milmi karaan ayaga. okay, and not soluble ma ku milmi karaan in polar solvent sida water oo kale macnaha ayaga ma ku milmi karaan polar solvent ma ku milmi karaan sida biyaha ma ku milmi karaan. waayahay, qodobka labaad oo astaamaha waxaa ka mid ah the first four members, afarta xubin ee ugu horeysa of a straight chain alkanes ee silsilada toosan ee alkaneka oo ay ka mid tahay methane, ethane, propane and butane are gases. ayaga waxaa la hayaa are gases, waa gases waa macnaha ayaga. okay, and the next 13 are liquids. 13 ku xigna ilaa 17 laga gaarayo ayagana waxaa la hayaa waa liquids, dareerayaal waaye. C5 ilaa C17 kaarboonka shanaad ilaa kaarboonka 17 laga gaarayo ayagana waxaa la hayaa liquid dareere waaye ayagana. those kuwaani ilmakaasi ayaga containing waxay ka kooban yihiin those kuwaasi ayaga containing waxay ka kooban yihiin 18 carbons. those kuwa containing ka kooban 18 carbons 18 carbon or more ama in ka badan ayaa waxaa la hayaa are wax solids, waa adkayaal sida xabagta oo kale macnaha jiidjiidmaya. ay qaabkooda waxay noqonayaan wax solids, waa macnaha waa qaab oo xabagta oo kale waaye, laakiin ayaga waxaa la hayaa solids, waa adka waaye macnaha ayaga. okay, qodobka saddexaad waxaa la hayaa marka the boiling point, barta oo maxay tahay karkarka. boiling point, barta karkarka of parental chain alkanes, silsiladaha alkaneka kuwaasoo macnaha baranjiga leh oo faraca leh oo faraca ah ayaa islo wardan waxay ka yar yihiin the corresponding straight chain alkanes. macnaha waxaa la yidhi the boiling point
barta karkarka of Barangergen alkanes Barangergen alkanes alkaynada ama silsiladaha alkaneska kuwaasoo ah faraca ah ayaa slower than waxay ka yar yihiin that of correspond kuwaasoo ku aadan oo ah straight chain alkanes silsiladaha alkaneska ee toosan sababtu maxay tahay because maxaa yeelay the surface area the surface area oogada bedka of alkanes ee alkaneyadu ayaa decreases yaraada with Barangen farac markuu yeesho markaasi oogada ayaa yaraata oogada space oogada alkanes ay ku fadhiisanayaan ayaa ku imaanaya decrease way yaraanayaan sidaas awgeed u noqonaysa xaaladaasi alkanes markii laga hadlayo ayaga are lighter than water ayaga biyaha ayay ka yaryihiin lighter way ka khafiifsan yihiin way sida awgeed ayaga ma dhexgalayaan biyaha waxay sameynayaan kaliya float way dul sabeynayaan maadaama density-gooda uu ka yaryahay density biyaha uu ka yaryahay density biyaha waa 1 gram per degree 1 gram per centimeter cubic ayaa la asiga am 1 kilogram per meter cubic way sida awgeed marka ayaga waxa la hayaa density-gooda ayaa wuxuu ka yaryahay kii biyaha ayuu ka yaryahay sida awgeed waxay sameynayaan flotation ay sameynayaan way dul sabeynayaan maadaama ay dul sabeynayaan waxa la ayaga alkaneska ayagu are lighter than water biyaha ayay ka khafiifsan yihiin ama ay ka fudud yihiin okay waxa la marka waxa jiro intermolecular force waxa la hayaa markii laga hadlayo intermolecular force-ga xoog gudeedkooda oo xoog molecule gudeedkeeda intermolecular force of alkanes ee alkaneyadu are intermolecular force of alkanes ay waxa la hayaa are waxay yihiin of van der Waals type waa ayaga intermolecular force-ga xooga molecule gudoodkooda ayaga isku xiro waxa la hayaa van der Waals type waa nooc ka mid ah van der Waalka la asiga waayahay waxa mid kale waxay tahay intermolecular force-ga xooga molecule gudoodkooda ku jira nooca lagu qeexayo waxa la hayaa van der Waals type la hayaa van der Waals type-ka intermolecular force-ga intermolecular xooga molecule gudoodkooda intermolecular force of alkaneska intermolecular force of alkaneska ayaa waxay sameynayaan increase xooga moleculeada oo gudeedka isku xira ee alkaneska waxay sameynayaan increase way kordhayaan goormay kordhayaan as molecules markii moleculeada oo gates ay helaan large markay weynaadaan marka hadii moleculeada ay weynaadaan intermolecular force-giisana uu weynaanayaa asiga marka uu badanayaa waayahay waxaan dhaynay marka kaarboonada hadii ay ka bataan 8 iyo 10 ay waxa la hayaa wax yalla ama waxa dhigi kartaa waxa lagu magacaabo viscous solid ama wax solid isku mid ah markaas wax solid waa kaarboonada markay ka bataan 8 iyo 10 kaarboon markay ka bataan waxa la hayaa viscous solid ama waxa lagu magacaabo wax waayahay waxa la marka it will be observed waxa la soo ogaaday that melting point waxa la soo ogaaday waxay tahay waxa la soo ogaaday that melting point bardhalaalka waxa la soo helay oo la soo ogaaday that melting point in bardhalaalka boiling point barta karkarka density-ga and density iyo cufnaantaba and density iyo cufnaanta waa liirmak ayaga of alkanes alkaneyadu of alkanes alkaneyada
rise inay kordhayaan. waxaa la soo helay ama la soo ogaaday in macnaha melting point, boiling point and density of alkanes rise inay kordhayaan with increasing kororka ay sameeyaan with increasing kororka ay sameeyaan molecular weight-ka haddii uu koror sameeyo uu bato macnaha molecular formulaha macnaha hadduu bato ayagana waxay sameynayaan way kordhayaan. tusaale ahaan methane haystay CH4 uu ahaa. methane maadaama CH4 uu yahay hal kaarboon iyo 4 hydrogen haysanaa. kaarboonkii aan kordhiyay waxay noqotay 2 kaarboon. hydrogenkii aan kordhiyay waxay noqotay 8 hydrogen. haddii molecular weight-ka ka hadda molecular weight-kiisa wuxuu noqonayaa 12 4 ku darso 16 waay molecular weight-kiisa. kana molecular weight-kiisa wuxuu noqonayaa 2 ku darso 24 8 ku darso 32 waay. marka molecular weight-kan wuxuu noqday 16 molecular weight-kan 32 waay. marka markasto molecular weight-ka uu kordho waxaa kordhayo melting point, boiling point, density waxa lagu magacaabo viscosity-ga uu kordhaasay. viscosity-gana uu kordhaya. okay, viscosity ayaa kordhaya. markasto uu kordho molecular weight-ka, melting point, boiling point, density and viscosity-ga ayaga waxay sameynayaan increase, way kordhayaan. halkaas waxaan kaga bixi doonaa physical properties of alkanes. waxaa inoo qoran jadwal ay inoo qoran methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane. okay, see what heptane, octane, nonane iyo decane inoo qoran. waxaa inoo qoran molecular formula inoo qoran CH4 minus 182 waay. kan kale wuxuu noqday minus 183. kan kale wuxuu noqday minus 190. waa la soo waday waa kaas marka mid kale ayaa ka badan marka 30 iyo 57 minus 30 iyo minus 57 minus 30 badan minus 95 minus 57 minus 57 badan markii la fiiriyo marka. okay, way kala badan yihiin mid uu ka weyn yahay uu ka badan yahay markaasi. soo fiirso boiling point-ga methane wuxuu noqday minus 164 halka ethane uu ka yahay minus 89 uu ka yahay. 164 oo minus wadato iyo minus 89 waxa badan minus 89 badan. density-gooda fiiri. density markii laga fiiriyo kan waa 0.668 gram per liter loo qaatay markii laga hadlayay methane. gram per liter waaye. okay, kan kale waxa la iskan waa ethane waxa loo soo qaatay 1.265 gram per liter waaye. labada qaas u jeedaa marka 0.6 iyo 1.2 waxa kala badan 1.2 waa badan. markasta oo intermolecular weight-ka uu bato waxa badanaya waxa lagu magacaabo maxay tahay density-ga, melting point, boiling point and viscosity ayaa bata marka. okay, physical state marka xaalada duleed marka heerkulku uu yahay 20 degrees Celsius. okay, maxaa lagu yaqaanaa afarta ugu horeysa waa gas, kuwa kalena waa liquid waaye. okay, waxaa le marka hoos waxaa inoo qoran note ogow marka the change isbedelka in units ee halbeega ayaa going from wuxuu kasoo bilaabanayaa gases habada ayuu kasoo bilaabanayaa. waxaa lagu cabirayaa gram per liter ayaa lagu cabirayaa. waxaa la gaarsiinaya macnaha wuxuu tagayaa kow inta laga soo bilaabay from gas markii laga soo bilaabo waxaa lagu cabirayaa gram per liter. waxaa la tagayaa to liquid markii la tagay waxaa lagu cabirayaa gram per milliliter lagu cabirayaa. okay, gas densities waxaa la yiri gas densities cufnaanta neefta ayaa waxay tahay 1 atmospheric macnaha 1 atmosphere waa macnaha hal atmosphere waaye markii la joogo pressure macnaha adayskeedu macnaha waa hal atmosphere waa markaas iyada. waxaan qaadan doonaa waxa lagu magacaabo chemical properties of alkanes. astaamaha kiimikeed ee lagu yaqaano alkaneska lagu yaqaano. alkaneska ayaga markii laga hadlayo are generally guud ahaan inert waaye.
inert maxay tahay macnaha waa kuwa aan macnaha falgal aan sameynaynin way buuxaan inert waayo inert maadaama ay maqtuwaadis waxay inert ku yihiin maqtuwaadis dhankayo acidka ay macnaha mala falgalaan sidaas la mid ah base-ka mala falgalaan waxa kale oo ka mid ah oxidizing agent markii la fiirinayo waxa la hayaa tusaale ahaan oxidizing markii laga hadlayo waxa la hayaa aluminium oo kale aluminium ayaa wuxuu la falgalayaa chlorine uu la falgalayaa chlorine markuu la falgalo waxa soo baxayo aluminium chloride soo bixinayso aluminium chloride markuu soo baxo kan wuxuu ka tagayaa zero iyo ka tagayaa wuxuu tagayaa +3 okay waayahay maadaama kan zero uu ka tagay asagana macnaha uu yahay asiga -1 okay marka waxa la fiirinayaa marka markii laga hadlayo inta markii laga fiirin hal mar waxa sameynaysaa aluminium waxay lumisay +3 ay lumisay +3 markay lumiso inta macnaha waxay tahay marka ever waaye kana -1 u baahnaa 3 ayuu helay markaasi markii la fiiriyo markaas markay tahay aluminium inta markii la joogo marka reactive macnaha markii falgal ku san in koor waxa la xaaladooda 0 waaye saa markay tahay 0 waaye +3 ay tagtay kana 0 waaye -1 waaye saas markay tahay waxa la hayaa aluminium asiga horta muxuu yahay asiga horta positive waaye kana negative waaye marka oo fiirina marka aluminium macnaha wax muu bixiyay ama wuxuu helay kuwa blaaska ah waxa la hayaa ayaga loss wax bay bixiyaan kuwa minuska aan waxa loo jeedaa waxay tahay kan waa -1 kan waa +3 saas maadaama ay tahay chlorine hal ay u baahan yahay makasiga marka wax buu helay asiga gain ayaa la hayaa uu helay kuwa oo wax hela marka oo maxay tahay kuwa maxaa ku dhacay loss waaye loss ma ku yahay iyo gain ma kii markaas waaye marka inta loo fiirinayo marka kuwa wax lumiya oo loss sameeyay maxaa ku dhacay marka ayaga electron ay lumiyeen okay oxidizing means reduction waaye okay marka sheyga markuu ku dhaco reduce markuu sameeyo reducing mid wuxuu sameeyaa oxide waxa buu helaa midna reduce wuu yaraanayaa kan oxide ku dhacay marka ay waxa la asiga oxidizing agent yalla marka sida aweed marka ay waxa la hayaa alkanes ayaga waa inert ay ka yihiin markii loo fiiriyo base-ka markii loo fiiriyo acid-ka markii loo fiiriyo oxidizing and reducing agents-ka oxidizing and reducing agent waxa si fiican u fahmi doontaa ciwaanka lagu magacaabo radical reaction-ka si fiican ugu fahmi doontaa waayahay however si kasto ay ahaato marka alkanes ayaga ayaa waxay yihiin quite inert waa macnaha ayaga waxa la hayaa waa inert markii laga hadlayo alkanes ayaga sidoo waxa la hayaa waa inert waa macnaha waa kuwa dheregsan ama waxay tahay waa kuwa non reactive elements waaye ay falgalka ma qayb qaataan ayaga waayahay sida aweed marka towards common reagents waxay macnaha ay ka yihiin marka ayaga inert waxay ka yihiin towards markii loo fiiriyo ama loo eego ama towards dhankayo common reagents saliin markaasi agentiyada reagents oo maxay tahay oo caanka ah such as maxaa ka mid ah acids ka mid ah maxaa kala ka mid ah alkalis ka mid ah oxidizing agent ka mid ah marka waxa la marka ayaga markii laga hadlayo alkanes ayaga waxa la hayaa waa inert waaye waxay towards ay ka yihiin marka ayaga kuwaasi common reagents-ka common reagents maxaa ka mid ah makasiga waxaa ka mid ah waxa lagu magacaabo acid-ka waxaa ka mid ah alkalis-ka iyo waxaa ka mid ah marka waxa la yiraahdo oxidizing agent ka mid ah okay alkanes ayaga do not undergo macnaha ma sameeyaan oo ma maraan many reactions falgal fara badan ayaga macnaha ma maraan oo ma sameeyaan DR collect waxa lagu magacaabayaa paraffins ayaa lagu magacaabayaa hadhow waxa lagu weydiin karaa alkanes maxaa loo dhahay paraffin maxaa loo dhahay why are alkanes called paraffins macnaha why alkanes are called paraffins alkanes ayaga maxaa loo dhahay waa paraffins because maxaa yeelay they do not undergo ayaga ma ka qayb qaataan many reactions falgal fara badan kama qayb qaataan waayahay erayga oo lagu magacaabo maxay tahay paraffinka ayaa from wuxuu ka imaanayaa latin ayuu ka imaanayaa param iyo affinus taasoo macnaheed ay tahay little affinity waa macnaha maxay tahay little affinity allah markaasi falgalkooda ayaa yar macnaha
falgal yar waaye. However si kasta yaata marka alkenes ayaga undergo waxay macna ay maraan ama ay sameeyaan the following reactions falgaladan soo socda ay sameeyaan under certain condition xaalad oo ay markii la joogo xaalad khaas markii la joogo ayaga waxa la macna waxay maraan falgaladan ay maraan waxay maraan waxa lagu magacaabo substitution ay maraan substitution reaction falgal oo maxay tahay ku bedelasho ay maraan substitution in loo sameeyo bedelaad in loo ku bedelasho la sameeyo. Okay, waxay kale maraan waxa lagu magacaabo maxay tahay combustion reaction ay maraan falgal oo muxuu yahay maqasiga combustion oo guusho ay maraan macna falgalkaas waxa la asiga combustion ay la mid waa guusho mid waxa la substitution ku bedelasho waa maqasiga waayahay mid wuxuu noqonayaa substitution mid wuxuu noqonayaa combustion waxa la yiraahdo waayahay substitution sometimes mararka qaar waxa la dhigi karaa marka waxa lagu magacaabo halogenation substitution waxa dhigi karnaa halogenation waayahay substitutionka markii la sameeyo waxa la marayaa waxa la yiraahdo halogenation maxay tahay markayda halogenation substitution macnaheedu waxay tahay markayda halogenation muxuu yahay marka halogenation waxa la hayaa wuxuu yahay replacement halogenation waxa la hayaa replacement waa ku bedelasho maxaa la bedelanayaa marka one of one or more hal iyo in ka badan hydrogen atoms hal iyo in ka badan oo hydrogen atomyo in la bedelo oo lagu bedesho marka in an organic compound isku dhisyada nool in an organic compound in lagu bedesho by a halogen ayaa lagu bedelayaa by a halogen. Halogenation maxaa la hayaa is the replacement waa bedelashada of one or more hal iyo in ka badan in lagu bedeshto hydrogen atomyada hydrogen in an organic compound isku dhisyada nool organic by a halogen in lagu bedeshto ayaa waxa la hayaa iyada halogenation ayaa la hayaa waa nidaamka lagu magacaabo substitution waa marka sida awgeed marka halogenation kaas lagu sheegayo waan halogens waxa la yiraahdaa ayaga bromine ayaa kamid okay oo la soo gaabinayo Br OSCO2 ay waxa la yahay diatomic elements waaye waxa kale oo waxa lagu magacaabo fluorine oo la soo gaabiyo asiga F okay chlorine oo la soo gaabiyo Cl OSCO2 iodine oo asiga qoday OSCO2 waayahay apa macnaha kuwan waxa la ayaga halogenes maxaa la cusba sameeyaal waaye halogenes macnaheedu maxay tahay cusba macnaha salt makers waaye halogen waxa laga wadaa macnihiisa salt makers waaye cusba sameeyaal waaye cusba ay sameeyaan waayahay kuwaas waxa leenahay halogenes waaye bromine chlorine iyo iodine in la dhaho marka hadhow marka waxay ka qayb galayaan marka falgalkii ay ka qayb galayaan ku bedelashadii toos ay ka qayb qaadanayaan marka ayaga in substitution reaction markii la joogo substitution reaction ka falgalka ku bedelashada markii la joogo one atom hal atom ayaa is displaced by waxa lagu bedelayaa another atom kale ayaa lagu bedelayaa in substitution reaction markii la joogo falgalka ku bedelashada markii la joogo one atom hal atom ayaa is displaced by another atom is replaced is displaced ayaa la barbixinayaa by another atom kale hal atom ayaa meesha laga barbixinayaa atom kale ayaa lagu soo bedelanayaa markaasi general guud ahaan alkenes ayaga undergo waxay maraan substitution reaction ay maraan falgal lagu magacaabo substitution reaction ay maraan markaasi falgal ku bedelasho waayahay oo markaasi with halogenes oo lagu bedelanayo marka halogenes ayaa lagu bedelanayaa kuwan ayaa lagu bedelanayaa markaasi halogenes waayo in the presence jiritaanka
of ultraviolet ama light inuu jiro marka light ilays inuu jiro ultraviolet inuu jiro waaye hadii uu jirin ultraviolet hadii uusan jirin sida awgeed ma dhici karo falgalkan wuxuu ku xiran yahay inuu jiro light iftiin in la helo ku xiran tahay iftiin hadii la waayo maya markii la sameynayo markii ay lagu darayo waxa lagu darayaa light ayaa lagu darayaa iftiin ayaa lagu darayaa iftiinkaas markii lagu daro kadib ayaa falgalkaas uu dhici karaa marka okay in the presence of light jiritaanku uu jiro ilayska markaasi this type noocan of substitution bedelashadani oo ku bedelashada oo atom lagu bedelanayo atomka lagu bedelanayo ayaa is known as waxa lagu magacaabayaa halogenation ayaa lagu magacaabayaa marka halogenation maxay tahay cusbo in la sameeyo markaasi waayahay chlorine iyo bromine ayaa react with waxay la falgalayaan ayaga alkanes ay la falgalayaan bromine iyo chlorine waxay la falgalayaan alkane ay la falgalayaan okay in the presence of heat waa marka uu jiro cool heat haduu jiro or ama light iftiin haduu jiro markaasi waayahay marka waxaan dhahnay waxaa la sameynayaa substitution ayaa la sameynayaa substitutionka markii la sameynayo waxaa lagu magacaabayaa halogenation ayaa lagu magacaabayaa sida awgeed marka markii brominka iyo chlorine-ka iodine waxaas markay la falgalaan alkaneska ay la falgalaan falgalka noocaas waxaa lagu magacaabayaa markii la soo gaabso waxaa la hayaa photochemical substitution reaction okay substitution reaction ayaa la hayaa markaasi substitutionka markii la bedelo one atom oo lagu bedelanayo atomka lagu bedelanayo waxa lagu magacaabayaa marka photochemical substitution reaction photo means iftiin light in la helo waa iftiin photo maxay tahay light iftiin in la helo waa haduu iftiin la helo ayuu dhici karaa waxa lagu magacaabo substitution reaction of alkanes markaas uu dhici karaa asiga waayahay okay and when a mixture of methane and chlorine markii methane iyo chlorine oo la isku daro mixture oo methane iyo ethane ayaa is heated lagu kululeynayaa above 100 degrees Celsius heerkulka oo ka badan 100 degrees Celsius ayaa lagu kululeeyaa asiga waa sababta loo dhahayo alkaneska ay saturated waayo sabab maxaa yeelay they require waxay u baahan yihiin a lot of energy to break bonds waxay u baahan yihiin ayaga tamar badan ay u baahan yihiin si loo burburiyo bonds-ko si loo burburiyo marka ayaga sida awgeed waxa la marka methane iyo chlorine markii la isku darayo ayaa la kululeynayaa waxa lagu kululeynayaa heerkul ka badan 100 degrees Celsius ayaa lagu kululeynayaa markaasi okay or ama radiated with light ama waxa la soo deynayaa waxa lagu deynayaa light iftiin ayaa lagu soo deynayaa of suitable wavelengths hirbaacoodun uu yahay mid oo ku filan si methyl chloride is produced si loo saaro methyl chloride si loo soo saaro waxa lagu darayaa light iftiin ayaa lagu darayaa iftiinkaas oo marka suitable mid ku hab suitable wavelengths hirbaac ku haboon inuu ahaado markaasi okay kadib waxaan dheeynaa marka example waxa inoo qoran methane oo lagu darayo bromine methane ayaa lagu darayaa bromine okay methane hadii lagu daro bromine maxaa soo baxay marka waxa inoo qoran substitution reaction kama kii la marayo waxa la dhahay one atom ayaa replace lagu bedelayaa and other atom kale ayaa lagu bedelayaa methane oo lagu darayo bromine waa diatomic waaye methane hadii aan ku darno bromine maxaa soo baxay marka waxaan ognahay marka in la sameynayo substitution ku bedelashada maxay tahay
hal bromiinkan wuxuu kala baxayaa laba xabo buu kala baxayaa hal ka mid ah waxaa lagu bedelanayaa hydrogen-kana lagu bedelanayaa hydrogen-kana inta laga bixinaa waxaa lagu bedelanayaa booskeeda hal bromiina lagu bedelanayaa halka bromiin kale soo haray hydrogen-ka meesha laga bixiyay ayuu la falgalayaa waxaa la hayaa hydrogen-ka inta laga bixin tanogey hydrogen waxaa lagu darayaa hal bromiin ayaa lagu darayaa asiga waayahay +1 iyo -1 waaye hydrogen bromide ak soo baxay meeshaas gooni u dhigo waayahay bromiinkii inta halka xab ahaa aan soo hal xabaan kala qaaday hal xab hydrogen aan ku daray hal xabaan waxaan ku darayaa organic compound aan ku darayaa oo ah okay halka hydrogen marka intaan ka saaro waxa soo galaya marka waxa qabsanaya meeshaasi bromine aan qabsanayo kadib waxaa noo soo baxayo C oo ku dhigan yahay hydrogen meeqa hydrogen ku dhigan 3 hydrogen ku dhigan booskan waxaa lagu bedelanayaa marka bromine ayaa lagu bedelanayaa balaas waxaa dhaysaa hydrogen iyo bromine falgalay hydrogen bromide asoo bixis marka hydrogen bromide halkaas ayuu ahaa example-kii noo qornaa ay ku saabsanaa hydrogen oo lagu darayo bromine lagu darayo aan fiirina marka asoo lagu darayo marka chlorine asoo lagu darayo ilaa waxaa leeyahay hydrogen-kaas meenaha methane-kaas waxaa lagu darayaa methane reactives wuxuu la falgalayaa chlorine wuxuu la falgalayaa bromine wuxuu la falgalayaa aan la falgelino marka kale maxay tahay chlorine aan la falgelino okay methane maadaama uu wato 4 hydrogen haduu wato okay waxaan ku darayaa marka chlorine aan ku darayaa okay chlorine hadaan ku daro chlorine-ka laba aan kala bixinayaa hal xab waxaan ku bedelanayaa hydrogen-ka aan ku bedelanayaa booskan ku bedelayaa marka aan ku bedelo hydrogen-ka banaanka soo istaagaa wuu ka baxay meesha hal chlorine meesha ku dhigay marka hydrogen-ka meesha soo baxay wuxuu la falgalayaa chlorine uu la falgalayaa okay haduu chlorine uu la falgalo waxa soo baxayo hydrochloric acid ka soo baxay halkaas hydrochloric acid ee goon oo soo baxayo waayahay hal chlorine meesha ku soo haray boos waxaan ku bedelay sigana hydrogen aan ku bedelay maxaa noo soo baxay marka waxaa noo soo baxayo waxa lagu magacaabo C oo wadata 3 hydrogen kaarboonku wuxuu wataa 3 hydrogen ayuu wataa 3 hydrogen ayuu wataa 3 hydrogen haduu wato hal chlorine ku dhigay kadib waxa ku soo baxayo balaas hydrogen iyo chlorine isku daraya hydrochloric acid ay soo baxay marka hydrochloric acid ayaa ay soo baxay markay tahay marka intaan ay soo bixis marka aniga saas ay soo bixin waxa la marka chloromethane alla kan marka la qarnay waxa la hayaa chloromethane methyl chloride la meenaasiga chloromethane waayahay chloromethane ama waxa la hayaa waxa lagu magacaabo methyl chloride labaas magac dhigi kartaa ma chloromethane ama waxa dhaysaa methyl chloride ayaa dhaysaa marka waa la sii wadaa asiga markii la sii wadaayo hadda mid aan haysan muxuu yahay marka anaga waxaan haysanaa CH3 oo ku dhigan yahay chloro plus waxaan ku darayaa mar kale chlorine aan ku darsanayaa marka waayahay waxaan ku darsanayaa chlorine aan ku darsanayaa haddaan hal chlorine aan ku daro marka in soo fiir maxaa iga soo baxayo haddaan soo gaabiyo markaan waxaan sameynayaa hal chlorine intuu la falgalayaa hal chlorine ayaa inta la falgalayo haddaan caadi u furno aan ka dhigano mid oo structure ku muuqdo saanayno ahayd anaga chlorine inta waxa ku dhiganayaa chlorine inta waxa ku dhiganayaa hydrogen inta waxa ku dhiganayaa hydrogen inta waxa ku dhiganayaa hydrogen plus waxaan ku darayaa chlorine aan ku darayaa okay marka waxa sameeynaya markasto ilaa hydrogenada ku jirnaa ka dhamay waa iska wadanaya hooshayda hal chlorine ayaa waxaan ku bedelayaa booskan hydrogen ka ku bedelanayaa hal chlorine waxaan ku bedelanayaa booskaas hydrogen ayaan ku bedelanayaa marka hal chlorine booskan hydrogen aan ku bedelo inta chlorine ku dhigay waxay tahay macnaheeda C waaye kor waxay ka saaran tahay chlorine inta waxa kaga dhigan chlorine inta waxa kaga dhigan hydrogen inta waxa kaga dhigan hydrogen kaga dhigan
okay saamarka ita marka balasaan dhahayaa inta marka sax soo baxayo hydrochloric acid sidee ku imaatay waxay ku imaatay hydrogenka inta ka bixiyay iyo chlorine inta ka soo haray aan isku daraya marka hydrogen plus chlorine waxa soo baxayo hydrochloric acid ka soo baxay macna ama hydrogen chloride laaya hydrochloric acid ama hydrogen chloride waayahay kam ka aqrinay maxaa dhaam qasiga كم كأخرنا محنا يا وحنا يا دايكلورو-ميثين معناها لبا كلورو أيا كودجن ميثين كاسي دايكلورو-ميثين أيا الله يا أم حلا يا ميثايلين كلورايد أوكي لو أسمع عليك كتامك ميثايلين كلورايد دي سمك ميثايلين كلورايد okay marka kale marka had waxaan haystaa soo ku dhigan yahay 2 chlorine waayahay saamarka ay tahay adin waxaan sameeynaa kaliya intaan ku darsanayaa plus chlorine aan dhahay bis kaliya plus chlorine hadan chlorine do halkan hydrogen ad meesha bixinaa hadana halkan hydrogen kan ka bixiyo hal chlorine meesha ku dhigayo okay maxaa noo soo baxay marka waxa inoo soo baxayo waxay tahay kaarboonka inaa soo qaato intuu kaga dhigan yahay chlorine intuu kaga dhigan yahay chlorine intuu kaga dhigan yahay hydrogen intuu kaga dhigan yahay chlorine balas waxa soo baxayo hydrochloric acid ay soo baxayo hydrochloric acid soo baxayo kan marka akhrina soo akhrina marka hal chlorine laba chlorine saddex chlorine trichloro methane ana marka trichloro-methane ama waxa lagu magacaabo waxa la yiraahdo chloroform alla makasiga chloroform ay Allah ya meeshas ka soo gogobeynina hadii aan sameeyno hadaan chlorine ku darno kan asigana hydrogen kana baxay biskaliya hydrogen ka soo duba waxa la marka mid ku dambeeyo carbon kan waxa ku dhigay 4 hydrogen carbon ka duu ku dhigay marka 4 hydrogen 4 chlorine ane carbon ka duu ku dhigo 4 chlorine waxa la makasiga carbon ka duu ku dhigo 4 chlorine oo plus hydrochloric acid uu ku soo maxaa la isaga waxa la ya tetrachloromethane magiis maxay tahayna waxa la ya tetrachloromethane 4 chloro ayaa ku dhigan methane waa marka tetrachloromethane ayaa la hayaa marka tetrachloromethane ama carbon tetrachloride maxaa dhaysaa carbon uu ku dhigan yahay 4 chloride carbon tetrachloride Allah carbon tetrachloride ama hadaysa tetrachloromethane ay Allah makasiga okay halkaas waxaan kaga bixinaa waxa la yiraahdo substitution reaction ay kaga tagi doonaa marka waxa inoo xiga marka ciwaanka ugu dambeeyo oo qaybtiisa maadaama sidii laba qayb uu leeyahay substitution reaction iyo waxa la hayo combustion reaction markii la hayo waxaan fiirin doonaa marka qaybta labaad oo combustion reaction ka fiirin doonaa combustion reaction waa falgalkan waxa la yiraahdaa asiga waa falgal ku shaqo leh gubashada waa markaasi combustion reaction waxa loo qeybiyaa laba qayb loo qeybiyaa complete iyo incomplete loo qeybiyaa asiga combustion reaction markii laga hadlayo asiga combustion markii laga hadlayo gubashada markay tahay combustion reaction ka waxa loo qeybiyaa laba qayb loo qeybiyaa mid waxay tahay complete reaction waaye complete combustion gubasho dhameystiran ayaa dhacayso mid kale wuxuu yahay sigane incomplete waaye incomplete combustion gubasho aan dhameystiran ayaa dhacayso complete combustion waxay tahay marka sufficient oxygen oo macnaha ku filan ayaa haystaa macnaha markii la joogo complete combustion macnaheedu waxay tahay sufficient oxygen ku filan ayaa haystaa halka tan ay tahay idin insufficient oxygen ayaa ku yar macnaha insufficient oxygen way oxygen ayaa ku yar kan markaas ma ku filna kan oxygen ayaa ku filan okay markii sufficient oxygen uu yahay oxygen ay ku filan tahay product ka soo baxay muxuu noqonayaa carbon dioxide carbon laba oxide ka soo baxayo okay iyo waxa soo baxay waxa lagu magacaabo water biyo soo baxay marka carbon dioxide and water ka soo baxayo taasoo marka hydrogen inta ka wadato okay water way kan waxa la siin carbon dioxide way
okay complete reaction complete combustion gubasho dhameystiran day dhacdo waxa soo baxayo barar soo baxayo waxay noqonaysaa carbon dioxide iyo waxa soo baxayo water soo baxayo incomplete combustion ma ku dhaca marka maxaa soo baxay isagana waxa soo baxay waxa lagu magacaabo carbon monoxide oo ah sun ah markaasi iyo waxa soo baxay waxa lagu magacaabo carbon monoxide iyo waxa soo baxay waxa la yiraahdo carbon ayaa soo baxay carbon monoxide okay waxay noqonaysaa marka carbon monoxide mar waxa soo baxay carbon monoxide ayaa soo baxayo marna waxa soo baxay carbon ayaa soo baxayo oo la socdo marka maxay tahay water biya la socdo carbon monoxide iyo water ama carbon iyo water ayaa soo baxa markii la joogo incomplete combustion markii la joogo markaasi waayahay incomplete combustion kuwa incomplete combustion maadaama uu yahay mararka qaar koodan waxa loo fiirinayaa tusaalahan bigger molecules markay waaweyn ay yihiin bigger molecules waaweyn waxay sameynayaan labaas qaab ama qasiga waxa la hayaa had way adag tahay tubaan in la gubo molecules waaweyn in la gubo way adag tahay combustion inay sameeyaan way adag tahay okay qaar kooda kale waxa la hayaa ayagana waa more suit waa macnaha qaar kale waxa la hayaa ayagana more suit way suit maxaa loo jeedaa maqasiga waa black smoke way black smoke markii la gubo waxa soo baxay baskaliya qiic oo madow soo baxay baskaliya black smoke la hayaa bigger molecules maxay sameeyaan hard to burn in la gubo way adag tahay sababta maxay tahay they need waxay u baahan yihiin ayaga a lot of energy tamar badan ay u baahan yihiin macnaha to break their bonds ko si ay kala burburaan sida aaway marka hard way adag tahay to burn in la gubo kan kale waxay tahay markii la gubo ay waxay sameeyaan bakaliya maxay tahay more suit ay sameeyaan erayga suit waxay tahay black smoke more black smoke macnaha qiic oo madowga oo fara badan waxa la hayaa more suit ay Allah maqasiga waayahay markii more suit kan laga hadlayo maqasiga more suit kan erayga suit ka ayaa depends on wuxuu ku tiirsan yahay percentage of carbon tirada carbonka ay ku tiirsan tahay okay tirada carbonka ay ku xiran tahay tirada carbonka hadii uu badan yahay macnaha waxay tahay markaasiga qaacaas ayaa badanaya more black smoke way qaacaas ayaa badanaya marka iyo waxay ku xiran tahay percentage of carbon ay ku xiran tahay waa la fiirinayo salaam markii la fiirinayo waxa la salaam methane oo kale way methane CH4 way okay CH4 markay tahay waxay wadataa 4 hydrogen kan wuxuu wataa carbon maxay tahay asagana 12 way okay waxa la marka 12 oo loo qeybiyay molecular weight waxa way 16 waxa lagu dhufanayaa marka 100 lagu dhufanayaa markaas 12 ayaa loo qeybinayaa 16 inta uu qeybiyo 4 waa 3 inta uu qeybiyo 4na waa 4 okay kadib waxaan dhahay marka 3 aan ku dhufanayaa 100 300 waaye 4 ay soo bixayso 4 aan qeybinayaa marka 3 aan ku dhufanayaa 100 4 aan qeybinayaa wixii soo baxo ay noqonaysaa marka percentage of carbon ku noqonayaa waxay ku tiirsan tahay suudkaas waxyaalaha markii la shido organic compound markii la shido in uu qaac oo madow oo fara badan uu soo baxo waxay ku tiirsan tahay tirada carbonka ku tiirsan tahay carbonkan oo laba carbonka oo maxay tahay oo carbon methane feeri methane wuxuu noqday methane CH4 waaye okay waxa ku xigay marka su'aalahan waxa fiirsan marka C10 H12 oo kala fiir marka number of carbon is fiir soo fiirinaysaan waxa dhaysa 10 okay oo loo toon 220 waaye oo loo qeybiyay id maxay u qoran 22 oo lagu daray 22 lagu daray 120 144 waaye times 100 dhaysa markaasi waa fiirinaysa kan fiiriyasina waxa ka soo baxayo waxa la fiirinayaa number of percentage of carbon ku tiirsantahay alkanes burnt alkanada ayaa gubta in the presence of sufficient oxygen hadii ay jirto ama jiritaanka uu jiro oxygen ku filan markay jirto alkanes way gubtaan to form si ay u sameeyaan carbon dioxide and water biyo iyo carbon dioxide si ay u sameeyaan an enormous amount tiro badan of heat energy ee tamar kul ayaa is released la soo daayaa. This type noocan of combustion ee gubashada ayaa is known as waxa lagu magacaabayaa complete combustion. Gubasho dhameystiran ayaa lagu magacaabayaa. Waayahay okay markii laga hadlayo marka
reactionka oo combustion reactionka asiga maxaa lagu magacaabaa okay waxaa lagu magacaabaya ayaga combustion reactionka this reaction combustion reaction ka leena this reaction falgalkan markii laga hadlayo okay are all highly exothermic qaar waxaa la yiraahdaa endothermic waaye markii laga hadlayo combustion reaction kaas wuxuu ku shaqo leeyahay exothermic ayuu ku shaqo leeyahay for example salahan methane oo gas ah ayaa lagu darayaa oxygen aan sameeyno complete combustion markii oo sameey lagu dhaho marka soo fiir marka complete combustion markii la sameeyo CH4 waa methane plus waxaan ku darayaa oxygen ka fikir uma baahna complete combustion guusha dhameystiran markay dhacdo waxaa soo baxayo carbon laba oxide oo lagu daray water ayaa soo baxay okay mal fiirinayo carbon laba oxide plus water waa complete combustion tijisintaas waayahay saas markay tahay waan balance gareynaa balance markaan sameynaa maxaan sameynaa marka waxaan sameynayaa fiiri hydrogen meeqa haystaa afar aan ku haystaa hydrogen waxa ku haystaa afar hydrogen waxa haystaa afar inta maxaan ku haysanaa labo si looga dhigo afar maxay u baahan tahay marka laba ayaan ku dhufsanayaa labo ku dhufo afar waayo labo ku dhufo afar waa ka dhigay okay hydrogentii balance ay noqotay inta dhinacan waa afar dhinacaasna waa afar aan tirsado dhinaca oxygen-ta ku jirto iyo dhinaca oxygen-ta ku jirto labadan intay ku dhacaysaa kan waa hal labaan ku dhuftay hal waa labo labadana ku darsaday afar oxygen aan haystaa inta waxaan ku haystaa afar oxygen dhinacan waxaan ku haystaa laba oxygen aan ku haystaa labadan oxygen si looga dhigo afar iidan waxay u baahan tahay laba inaan ku dhufto halkaas mar hadda balance waaye maxay noqotay balance inay balance waxa ku dareemay carbon kan fiiri inta maxaan ku haystaa 1 inta maxaan ku haystaa dhinacan 1 hydrogen soo qaado inta maxaan ku hayaa 4 xagan maxaan ku haystaa 2 times 2 4 aan ku haystaa maxaa soo haray oxygen maxaan ku haystaa 2 times 2 4 aan ku haystaa xagan maxaan ku hayaa 2 times 1 waa 2y 2 plus 2 4 dhan kasta balance way left side iyo right side ko waxay noqdeen balance ay noqdeen waayahay example ka labaad ay noo qoran oo buug ku qoran wuxuu yahay C10 miya waa C10 C4H10 way C4H10 butane noo qoran C4H10 qoran okay plus waxa ku daraysaa oxygen waxaan rabaa inaan sameeyo complete combustion gubasho dhameystiran inaan sameeyo rabaa ka fikir ma lahan waxa soo baxayo carbon laba oxide plus water soo baxayo ma u baahan inaad ka shaqeysid intaan way ku soo baxaysaa marka shaqada waxay tahay kaliya balance ay sameynaysaa carbon ka fiir marka inta muxuu ka wataa afar uu ka wataa intan muxuu ka wataa hal okay si aga dhiga marka afar hal lagu dhuftay afar aan ku dhuftay carbon ka balance uu noqdo afar carbon waayahay hydrogen inta fiir hydrogen waxa haystaa 10 intan waxaan ku haystaa labo maxay u baahan tahay in lagu dhufto markeeda 5 aan ku dhuftay waayahay waxay noqotay 5 labo ku dhufo 10 waaye okay carbon iyo hydrogen balance waaye waxa la rabaa marka in la balance gareeyo oxygen inta labaan ku haystaa inta maxaan ku haystaa afar laba ku dhufanaya 8 waaye inta waxaan ku haystaa 5 hal ku dhufo plus 5 aan dhahayaa 8 lagu daro 5 inta waxaan ku haystaa oxygen 13 inta maxaan ku haystaa marka inta waxaan ku haystaa labaan ku haystaa tiradan inta ii taalo ayaa inta ku dhufanaya labaan u qaybinaya markaasi 13 aan ku dhufanaya 13 kan ku dhufto labaan u qaybinaya marka hadhow marka labadaas la baxayaan 13 soo haraysa marka waa kaas amar ama hadii karta 13 laba ku dhufo 26 waaye laba qayb 13 fraction ka insan marka daniga okay saa markay tahay balance aan ku sameeyay marka daniga okay aan soo qaato mar kale waxa lagu magacaabo C5H2 alif
okay balaas waxa ku daraya oxygen ku daraya maxaa iga soo baxay ii fiiri waxa iga soo baxayo carbon dioxide oo lagu daray water iga soo baxayo saamarka iga soo baxdo kadib maxaan sameeynaya marka inta fiiri carbon kan 5 uu wataa id maxaan ka dhigayaa 5 hydrogen maxay ka wataa 12 id maxaan saarayaa 6 lagu dhufo 12 waayo okay kadib maxaan sameeynaya marka sheeg carbon waa balance hydrogen waa balance yaa dhiman oxygen si uu uga oxygen ta qaybtana soo hubina marka oxygen marka la fiirinayo inta soo diyaarinaysa xaq soo yeeshid ay inta keenaysa marka okay shana laba ku dhuftay 10 waaye oxygen tan sheegaya lixan ku dhuftay hal 6 waaye waa isku daraya 16 ay soo bixis oxygen waxa haysta 16 in 16 keen marka laba nu qaybso okay 16 waaye saan waa sameey 16 laba ku dhufo 32 laba qayb 16 okay midaan isdhaaf fraction uu baahani hadaan waa sameey kara dhib ma keenis marka waayahay laba maadaama haasto 16 aga dhiga 8 aan ku dhufanaa ama xasmee kartaa 16 soo qaado laba la qayb bas caadi waa ku sameeysantaa marka intaas aad filim marka la complete combustion marka okay marka qaaciday leedahay oo ah CnH2n+2 waa qaacidadii alkeenku uu lahaa kadib waxaa dhaysaa plus 3n+1 oo loo qaybiyay 2 kadib oxygen ku dhufsan markaas oxygen okay maxaa inoo soo baxay marka waxaa noo soo baxay carbon dioxide oo lagu daray water okay in carbon dioxide plus haye bil furo n+1 oo lagu dhuftay water qaacidadii aan haystaa marka haye aan fiiriyo marka C kaadi qoran oo kale waxa noo qoran C4 H10 aan ku baroobayno C4 H10 okay C4 H10 markii aan ku baroobaynayno waxaan ku darayaa C4 H10 waa ay soo bax alkeenkii waaye balaas waxaan dhahayaa 3 okay oo lagu dhuftay in qiimaheedu meeqa waaye tirada kaarboonka waaye okay 3 times 4 balaas waxaan dhahayaa 1 waxaan qaybinayaa maqaniga 2 aan qaybinayaa markaasi okay marka aan qaybiyo 2 kadib waxaan dhahayaa marka oxygen aan ku dhufanayaa inta okay maxaa ka soo baxay marka in meeqa haasta 4 haasta carbon dioxide ku dhacayo balaas aan dhahayaa inta meeqa haasta 4 haasta halaan ku darayaa waxaan dhahayaa idana 5 ayaan dhahayaa inta xaq soo baxay marka water ka soo baxay marka hadda balance ma tahay aan fiirino C4 H10 okay H10 maadaama ay tahay balaas aan lahayaa 3 lagu dhufanayaa 4 waa 12 waaye hal ku darso 13 labo qaybi okay waxay noqonaysaa marka 13 oo loo qaybiyay 2 oxygen oo wadato 2 kadib waxa soo baxayo 4 carbon dioxide plus 5 molecule of water soo baxay marka ma dheelitiran tahay way dheelitiran tahay id maxaa haystaa 13 oxygen labadaas la baxaya macnaha id waxaa haystaa 13 oxygen id maxaa haystaa 4 2 ku dhufo 8 5 ku dhufo 5 isku dar 13 waaye inta waxaa haystaa 13 carbon inta 13 carbon 4 hydrogen 4 carbon 4 carbon 10 hydrogen 10 hydrogen balance waaye okay aan ku sameeyno example ka marka ugu dambeysay aan ku sameeyno kii ugu horeeyay oo ah CH4 plus oxygen okay saas markay tahay CH4 ka soo qaadanaya CH4 iyo soo qaad okay plus aan dhahayaa 3 oo lagu dhuftay n waa 1 markaasi n waxay taagan tahay 1 3 times 1 okay balaas waxaan ku darayaa 1 waxaan qaybinayaa 2 aan qaybinayaa oxygen ku dhacay markaasi maxaa ka soo baxaya marka okay numberkii waaye numberkan 1 waaye 1 muujina marka maya carbonka soo qaadanaya marka okay carbonka soo qaadanaysa oo dioxide ka ah balaas aadaysa n plus 1 n waxa hasta 1 plus 1 waa 2 molecule of water waaye haye aan fiirino hydrogen waa 4 inta maxay ka tahay 2 times 2
afar carbon soo qaado inta wuxuu ka yahay 1 xagana muxuu ka yahay 1 okay maxaa fiirina oxygen markaasi oxygen waxaan dhahayaa 3 times 1 plus 2 okay waa 4 waaye saddex hal dhufo saddex waaye hal ku dar waa afar labo qeyb inta waxay noqonaysaa maktuub 2 times 2 oxygen waxaa haystaa 4 xagan maxaan ku haystaa iyadana okay 2 iyo 2 times 1 4 aan ku haystaa hadda balance waa complete combustion reaction alla makasiintaasi okay example 1 example 1 wuxuu dhahayaa right waxaad qortaa balanced combustion equation isku dhiska guushada ee dheelitiranka aad qoraysaa oo guush sameeyay oo lagu magacaabo ethane C2H6 waaye C2H6 ayaa la rabaa in lagu sameeyo maxay tahay in lagu sameeyo balance in lagu sameeyo la rabaa marka see loogu sameynayaa waxaan soo qaadanayaa C2 iyo waxaan soo qaadanayaa H6 kadib waxaan ku darsanayaa plus 3 ayaan dhahayaa bosk n waxaan haystaa 2 3 times 2 plus 1 divided by 2 ayaan dhahayaa oxygen ayaa qabsanaya markuu qabsado maxaa ka soo baxaya marka waxaa ka soo baxaya waxa lagu magacaabo marka n oo ku dhagan yahay carbon dioxide n boska waxaan haystaa labana haystaa labo carbon dioxide waa qaacidadan ku dabaqayaa okay 3n plus 1 eeday n ka boos waxaan ku badashay 2 aan ku badashay meelkas n waxaan ku bedelanayaa 2 ayaan ku bedelanayaa plus aan dhahayaa marka water soo bixi jiray laakiin tusan water soo bixin ka hor waxa ka horeyn jiray n plus 1 n qiimeed waxaan haystaa 2 plus 1 ayaan dhahayaa kadib waxaan ku dhijinayaa marka 1 molecule of water ayaan ku dhijinayaa markaan ku dhijiyo marka inta feeri saddex aan ku dhufanayaa 2 waa 6 hal aan ku darayaa waa 7 waxaan dhahayaa marka C2H6 plus saddex aan ku dhiftay 2 waa 6 hal aan ku daray waa 7 maxaa u qaybsanne 2 ayaa u qaybsan marka 7 loo qeybi 2 waaye oxygen ayaa ku dhigan waayahay kadib maxaa ka soo baxaya marka sigane tan sideed igu soo qaado 2 carbon dioxide waaye plus ayaan dhahayaa 2 ayaan ku darayaa 1 waxa iga soo baxaya 3 molecule of water ayaa iga soo baxaysa markaasi halka markaa joog balance waa shaygan okay kan asla baxeen isku jar marka isku jaray oxygen meeqan halkan ku haystaa ii sheeg 7 aan ku haystaa bis kaliya halkaas meeqan ku haystaa waxaan ku haystaa 2 times 2 labadana isku dhacayaan waa 4 waaye 3 times 1 3 waaye 4 plus 3 is equal 7 way balance okay c halkan waxaan ku haystaa 2 ayaan ku haystaa halkan meeqan ku haystaa isagana 2 ayaan ku haystaa kaliya iyadana waxaa soo haray marka hydrogen halkan waxaan ku haysanaa 6 ayaan ku haysanaa halkan 6 ayaan ku haysanaa waa 3 times 2 it is 6 idan way balance garaysantahay markaasi halkaas waxa ku dhamaanayo example-kii koowaad ee ku saabsanaa combustion reaction gaar ahaan complete ka ku dhamaanaya okay saas markay tahay maxaa la sameynayaa marka inta markaan sii joogo ayaa waxaan sameeyay xalli marka multiply ku dhufo whole equation by 2 to make si loo sameeyo coefficient to whole numbers horgale oo whole number tira idil ah markaas si looga dhigo sababtu maxay tahay todobadan meesha ku qoran awe todobadan oo seed loo waaye labadan marka si loo baabiyo intaan ku dhufanaysaa loo marka labo okay all labo ku dhufo haddaan labo ku dhufano marka guud ahaan haddaan labo ku dhufo maxaa noo soo baxaya marka intaan laba ku dhacayso waxay noqonaysaa marka C2 maadaama ay tahay C2H6 markay tahay okay aniga waxaa haysnaa marka 7 loo qeybiyo 2 haysnaa 2gaas meesha noogu qoran ayaan baabi'inaynaa kaarboonka maadaama sidaan uu yahay haddaan labo ku dhufano 4 uu noqonayaa waxaa kaloo ku soo haray marka dana waxaa isticmaalaynaa baskeliya maxay tahay waxaan ka dhignaa baskeliya horgalaan ka dhignaa la baskeliya labadaas hoos ku qorna ka baabi'inaynaa waxaan ka dhigan doonaa horgalaan ka dhiganaynaa horgal see loo dhigayaa saas waa baskeliya in tool isticmaal tool sad maxay tahay toolgaana meesha laga baabi'inaa hooseeya laga baabi'inayaa in tool ku dhacay wuu ka baaba'ay markaasi waayahay halka kale intan caadi uu dhacay markaasi in sababta oo hal tool oo isticmaal maxay tahay equation kan fiir marka inta fiir maxaa noo soo baxay aniga waxaan haysanaa markaan kuwaan ka tirtirno inta fiir okay saa markay noo marayso tuugan si loo baabi'iyo marka asiga tuugan si loo baabi'iyo inta dhan waxaa ku dhacay tuuga ku dhacay marka
waxaa la dhahay horgala isticmaal oo 2 ah 2 hadaa isticmaashid inta waa markaasi 2gaan inta ku qoran waxaa laga dhigayaa horgal laga dhigayaa bas kaliya 2gaan inta ku qoran horgal laga dhigayaa hadhow inta xaq saaray bas todoba ku saaraysa markaasi C2H6 okay C2H6 saas markay tahay balaas ayaa la hayaa todoba way marka oo oxygen ah waayahay kadib maxaa soo baxay marka iyadana intan 2 ku dhacay marka iyadana waxay noqonaysaa marka iyadana 4 ilaan kan 2 aan ku dhacaya 4 waaye okay inta waxa ay sii yaal marka sigana tusaalaan 4 ay taalo carbon laba oxide okay kadib waxaan nahayaa balaas 3gan 2 ku dhacay sigana waa 6 molecule of water waaye haddana marka balance garee marka fiir marka carbonka 4 haysta intan 4 ka haysta 2 times 2 hydrogen waxa haysta 12 intan waxana 2 times 6 12 waaye oxygen maxaa ka haysta ay sheeg inta waxaan ka haysta 4 laba ku dhufo meeqa waayne 8 waaye 8 6 ku darso 14 intan waxaan dhahayaa marka 7 laba ku dhufo meena waa kaasa 7 laba ku dhufo 14 waaye labadan tale ku dhaxaysa bis meena xaq muusoo gudbeyso 7 laba ku dhufo meeqa waaye 14 indida 7 ku dhufanayaa labo inta maxaan dhahayaa 4 laba ku dhufo 8 waaye 6 hal ku dhufane 6 waaye waa isku darayaa 14 halkaas aan kaga bixinaa marka carbon waxa la haysan laba ku dhufo 4 waaye oxygen waxa la haysan 6 ku dhufo 12 carbon waa 4 hydrogen waa 6 hydrogen waa 12 inta markii la joogo waaye xaqan sidaas la mid ah carbon waa kaas 4 waaye hydrogen maxay tahay idina 6 laba ku dhufo idina 12 waaye oxygen ku saartay 7 laba ku dhufo 14 waaye intana fiiri 4 laba ku dhufo 8 waaye 6 ku dhufo 6 waaye isku dar meeqa idina 14 waaye marka laba meel isku mid leh 14 saas oo balance garay marka aniga halkaas balance-ga ayaa iska qayb example ku wato marka Soomaaliya waxa idin sheega segsegnimaa la iska dhaafo some teach waa cilmi la soo duuduubi hadaa idin sheegi waa lagu soo shubay